baarlamaanka maanta ka jeediyeen iyo waxyaalaha ku xeernaa sidoo kalena waxaynu wax iska odhan doonaa daawashana qiimaha badan arrimaha ugu dambeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo weliba dalalka shisheeye ee iyaguna qurinaya arrimahaas ayaynu soo koobi doonaa daawashana qiimaha badan horta ku horeeyo fadhigii maanta ka dhacay golaha shacabka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan waxa uu ka hadlay arrimaha baarlamaanka maanta laga hadlayay isagoo cadeeyay inaysan arrinta baarlamaanka maanta aysan ku saabsanayn arrimaha suuqa la geliyay ee inta badan la wareejinayay iyadoo dadka Soomaaliyeed qof walba warbaahintiisa gacanta ku sito wadaniyadiisana uu jeebka ku sito taasoo markaas ka dhigan dalka in ay mar walba ay dad iskaga shaqaysanayaan oo runtii aan ka xunnahay in wadankeena cid ka naxaysa ay yar tahay maanta marka loo eego waxyaalaha badan aad ka baranaysa wadankan iyo dadka marka baratidna ay ku cadaanayso in wadankan runtii meel fog la geeyay wadanka meel fog ayaa la geeyay ama la gaarsiiyay dadkiisa iyo bulshadiisa meel fog baa la geeyay mabda ahaana dadka siyaasiyiinta meel fog ayay jiraan qaarkood marka waxaan rabaa daawashada qiimaha leh arrinta khudbad madaxweynaha in oo kale idinku waa daawateen af Soomaaliga ku hadlayay laakiin waxyaalaha madaxweynuhu ka hadlay maadaama hadallo badan diblomaasiyadeed ay ku jireen inkastoo badankooda ay hadalka badankiisa u ahaa loola kala si saraxa ay ahayd oo waxyaalihii social media xogaha iyo barnaamijyadii ka diyaarinaysay wax badan oo ay ku seekanaan maba jirinba waayo waxa madaxweynuhu ka hadlay wax ummadda Soomaaliyeed wada ogeed buu ahaa hataa wax loola kala social media gaar u ogeed maaha waraaqihii dokumentiyadii iyo qoraalladii iyo wax kasta oo waad ogeydeen heshiisyadaas la sheegay wada ogeydeen laakiin arrinta meesha ku jirta waxaa weeye inaynu fahanno tanaasulaadka faraha badan ee meesha ka dhacay 5 jeer madaxweynuhu uu sheegay inuu soo tanaasulay intaasna cidood ka qabta hadeerto xaafid iyo mucaarad iyo maamul goboleed aysan jirin heshiiska ugu dambeeyay September ee sharciga dalka noqday land of the law kamidaysan ku celcelinaya waa sababta ku celcelinaya waxaa weeye wadanka Soomaaliya waa baarlamaanka wadanka awoodda baarlamaanka iskale nasiib wanaagga maanta ay Soomaalidu haysato waxaa weeye baarlamaankii lama kala tirin lama qabirin oo baarlamaanka hadii maalintii la qabiri lahaa ama sidii doorashadii ka horeysay doorashada 2016 wata weydeen forum dheerada forum doorashada la sameeyay waxaa laga soo baxay baarlamaanka guddoonka nimankii saddex arrimood ugu sareeya gudoomiye Jawaari ku xigeen risi xigeen baa laga soo baxay intii kale banaanka loo tuuray taasi waxa ay keentay markaas in talada dalka ay gacan baleedada iyo dadka loo yaqaano madaxweynihii markaas iyo ra'iisul wasaarihii oo markaas iyo maamulgoboleedadii iyo ahlu sunna wal jamaaca iyo group noocaas marka waxay noqotay stakeholder ayay noqotay taasoo sharciyada baarmarsaneed waa arrin xaqiiq waayo dastuurku waxa uu qorayaa baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladda talada haysa dawladda u bedesha laakiin maamul goboleedo heer maamul goboleed ay soo doorteen dawladda qaranka ee federaalka ma bedeli karto marka horta waxa xubnaha baarlamaanka ay kaga duwan baarlamaanka tobnaad waxa sharaf weyn u ah iyaga Soomaalina runtii u ah had in ay iyagu noqdeen dad sharciyadoodii ilaashaday marka u horeysa oo dalka mas'uuliyadiisii walow xitaa ay baarlamaanku xitaa diidanayeen ilaa xad in maamul goboleedada marka hore gacanta loo geliyo oo talada ilaa xad kana maanta la siiyo haddana dabcan maamul goboleedadu fulintay ka mid yihiin oo waxay ka mid yihiin dadkii wax ka fulinaya goboladii bay xukumaan ciidamay haystaan dhulkii doorashada ka dhacaysay iyagaa jooga marka wixii marka rational laga dhigo waaqic laga dhigo lagama maarmaynin inay tala fiican ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka haddana se mar walba in meesha loo noqonayo ama marjaca baarlamaanka noqdo waa arrin maanta keentay xasiloonida dalka inay gacanta baarlamaanka ku hayaan xog dawladuna ay noqoto dawlad aan faraaq lahayn oo haddii la gaaro 8 bisha iyo haddii la gaaro 2 sano kadib oysan dawlad kalena soo dooran dabcan ayagu sii joogaya inta doorasho dalka laga gaarayo laga heshiinayo inkastoo madaxweynuhu uu ballan qaaday marka arrintaas baarlamaanka runtii waxa ay keentay didila aad weyn xubnaha baarlamaanka ee waddanka iyagoo mucaarad iyo muxaafid bale waxaad moodaa in badankoodu ay yihiin dad runtii tayo badan leh baa loola karaa lama xaqiri karo badankoodu oo runtii garanaya mas'uuliyadda oo garanaya badankoodu way xildhibaanada qaranka waxaana muujiyeen deganaansho iyo sidoo kale in ay taladii dalka ay diideen in la wada wareejiyo oo loo wareejiyo maamulgoboleedyo arrimaha markaasi baarlamaanka marka taa laga yimaado hadda u taalla waxaa weeye in ayagu go-aan ka gaaraan ama soo saareen road map doorasho lagu qabanayo oo dawlad oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay amar sii karaan oo ay oran karaan 3 bilood ama 6 bilood waa in doorashada lagu heshiiyaan lagu heshiiyo waayana waa in ka hor inta la isku soo noqdo kadib go'aan kale la gaaraa ama waxay oran karaan waddanka one man one vote loo diro oo dalka loo diro extension iyo dawladda sii karaan dawladda amar ay sii karaan waxay dhigi karaan muddo sanad iyo bara muddo 2 sano ku soo qabta doorashada dadka intii dhow qof maalin walba doorashada isku haysan lahaayeen
oo laga yaabo in ay dana kale kala wataan hal loo gacan geliyo marka arrimahaas arrinta baarlamaanka intaasan kaga baxaynaa maantana arrinta baarlamaanku intaasay ku ekayd kulli maalmaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay kulamo kala dheeri ay dhacaan runtiina waxaa kaloo muhiima in go-aankii baarlamaanku uu soo saaray 16 September baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ayaan ka hadalnay habeen saddexaad waraaqihii iyo dokumentiyadii xafiiska baarlamaanka yaalla warbaahinta faafinta dowladda